Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Siyahayaha Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa maanta gudoomiye shir looga hadlayay dhaqaalaha dalka iyo dardargelinta qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. Kulankan oo ay ka qayb galeen Siyahayaha Wasiirka Maaliyadda, Gudoomiyaha Banka Dhexe ee dalka iyo mas'uuliyiinta hay'adaha wasaaradaha qaybta ka tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa looga dooday arrimaha dhaqaalaha dalka gaar ahaan dhibaatada ka dhalatay xanuunka COVID-19. Sidoo kale kulankan ayaa loogu dooday isu diyaarinta shir dhexmara dowladda iyo IMF-ta oo ka mid ah imtixaanka joogtada ah ee lagu ogaanayo sida dowladda ay u soo buuxisay shuruudihii deyn cafinta. Kulankan oo ay dibad joog ka ahaayeen bahda warfidyaanka ayaa markii uu soo idlaaday waxaa bahda saxaafadda la hadlay Siyahayaha Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay kulankan iyo waxyaabaha kale looga hadlay. Waxa la isku dul taagay arrimo aad iyo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin dhaqaaluhu halka uu marayo, COVID-19 xanuunkii halka uu wax gaarsiiyay iyo halka uu taagan yahay, iyo cilaaqaadka ay la leedahay dhaqaalaha waddanka. waxaa kaloo aad looga hadlay oo diiradda la saaray shir soo socda oo ballaadhan oo dowladda Soomaaliya ay la yeelanayso hay'adda IMF-ta la yiraahdo oo bilaabmaya barimaasaan dambe 31 bilaabmaya ilaa bartanka bisha kale soconaya oo imtixaanadii caadiga ahaa ee geedi socodka Soomaalida lagu eegayay waxyaalahan ku heshiinay ayaa iyagana diyaar garowgoodii maanta halkan lagaga hadlay iyo wasaaraddu waliba sida ay ula falgalayso su'aalo fara badan oo la soo diray oo soo direen IMF-tu hay'adda lacagta adduunka ay soo dirtay. waxa kale laga hadlay si guud Soomaaliya sanadkiina soo dhaafay sida loo arkay performance-keedu siduu yahay. Dhamaadka kulankan ayaa dhammaan wasiirada hay'adaha dowladda ee ka tirsan tubta horumarinta dhaqaalaha waxaa la faray in ay gutaan qaybta uga aadan qorshaha deyn cafinta dalka si loogu guuleysto dhammaan shuruudaha loona gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Yuusuf Maxamed Axmed, Galmudug TV, Muqdisho.